dhawaada barnaamijkeena astaan horumar studio Melbourne wadanka Australia barnaamijkeenan marti waxa caawa noogu ah Cabdirashiid Bashiir Warsame oo ah nin aqoon-yahan ah dhinaca dhaqaalaha. Cabdirashiid waxa uu wax ku bartay wadanka Netherlands, America iyo Spain. jaamacadda wuxuu ka baxay Redbourne University ee wadanka Netherlands kadibna wuxuu u tagay waxbarasho jaamacadda Harvard School of John F. Kennedy ee wadanka America. Cabdirashiid wuxuu ka shaqeeyay meelo badan oo adduunka ka mid ah isagoo u shaqeeyay hay'ado caalami ah ama international level ah iyo dawlado. Waxa uu hadda yahay ama ka shaqeeyaa Islamic Development Bank, bankiga horumarinta Islaamka ee uu yahay saldhigiisu Jeddah, Saudi Arabia. halkan waxaan kula kulmay isagoo oo ku hakaday wadanka Australia magaalada Melbourne ayaa nasiib u helay inaan wareysigan ka qaado. Cabdirashiid ku soo dhawow Puntland TV studio-giisa Melbourne ee dalka Australia. caawana waxa aan ka wareysan doonaa bal sida uu arko horumarka ballaaran ee Puntland ku socoto ee la dhihi karo si xawli ah ayay ku socotaa, kaas oo la yiraahdo waxa uu leeyahay reforms badan ama isbeddello badan oo lagu wado. waxaan Cabdirashiid weydiiyey bal as economist ama nin dhaqaalayahan sida uu arko isbedelada iyo horumarka ay gaarsiin karaan Puntland haddii ay dhamaadaan. Cabdi su'aashaadu waa su'aal ballaaran oo qayb yeelan karto runtii. waxaan isdhihi karaa Puntland waxa ka socda isbedello wanaagsan, balse waa bilow. sida waqtiga Cabdi oo horumarku waa meel buu ka bilowdaa, laakiin se ma dhamaado qofba u sii dhiibaa. sida ka muuqata taariikhda Puntland waa la isku soo dhiibay, marka lama dhigi karo hadda horumarka hadda la gaaray waa wax hore ka maartay ka yimid waxyaabo la isku soo dhaxlay weeyaan. isku soo duubo waxaan dhihi karayaa wax wanaagsan baa Puntland ka socda haddii dadka reer Puntland ay fahmaan oo dulqaataan simraan. micnaheedu maaha inay la xisaabtan dawladooda, laakiin wax wanaagsan baa ii muuqda. waxyaabaha hadda aan maqlo mar walba dhagaha ku soo dhaca waad moodo dawladdu inay ka dhigatay runtii macnaha waxyaabaha iyada lagu aqoonsado waxa ka mid ah waxaan noo muhiim kaabayaasha dhaqaalaha, waxaan noo muhiim shaqaalaha in dib maaragtay habeen lagu sameeyo, waxaan noo muhiim inaan maaragtay cadaaladda wadanka maaragtay dib habeen lagu sameeyo dad aqoon leh ay ka shaqeeyaan. waxyaabahan kale aan maqlo aad u wanaagsan waxa ka mid ah macnaha marba aad maqlaysay Puntland ay leedahay anaga waxaan noo muhiim sidoo kale Soomaalinimada cidna kaga tagi mayno si kastoo khilaaf kasta u dhaco. waxaa kaloo ka mid ah aadayadana ugu wanaagsan ay maqlayso dib baan waxaan ugu habeenaynaa maaragtay habkii dakhliga dawladda ama maamulkii sidii loo maamulayay waxyaabaha dawladda soo gala. waxyaabahaas dhan waxay ku tusinaysaa macnaha inay Puntland meel wanaagsan u socoto haddii ay dadku fahmaan baan isleeyahay. horumarkuna macnaha saan kuu sheegay meel unbuu ka bilaabanaya, laakiin dhammaadkiisa lama dhigi karo halkaas ku dhammaanayo. waxyaabaha waa dhowto waduu iska dadku kale ay ka dhexli doonaan. marka isku soo duubo anigu waxaan si positive baan ka ahay, macnaha wax wanaagsan baa ka socda Puntland. muhiimadda ay leeyihiin maxay tahay kaabayaasha dhaqaalo? dadku waa noolaayeen iyagoon airport iyo deked iyo jid midna lahayn. yani as leedahay yani maantayto ina Puntland adduunka horumaray ma aha, inkastoo ay yani ay isku taxalluujinayaan. maxay keenaysaa as leedahay airportka kale aan ku hormar? Cabdi waxyaabo badan bay keenaysaa runtii. su-aashan lafteeda waa su-aal ayada jawaabteeda waa su-aal aad u ballaaran weeyaan. meelo badan baad ka fiirin kartaa. waxaad ka fiirin kartaa door waxay ka ciyaari kartaa dawladda dakhligeeda waxba u soo galaya. waa mid waxay rol ka ciyaari kartaa dadka inay u fududeyso wadankeena yimaadaan ay maalgashtaan, dadku inay dalxiis u yimaadaan, dadku inay waxaan ku raadaa inay ganacsi wada u furto. waxyaabo badan bay u soo kordhinaysaa. waxay kordhinaysaa sidoo shaqo abuuraysa. dabcan shaqo abuuraysa dawladdu waxay u soo gelinaysaa dadka ugu saaranaysaa inay isticmaalaan badda kaliya ee xitaa cargo alaabaha raba inay keensadaan badda reer soo gudbaan. diyaaradu hadday yimaadaan u sahlanta. hadda waxyaabo badankood waxa lagu soo qaadaa doomo iyo maaragtay iyo maraakiib baan filaya. dadka laftooda safar dheer waddo dheer bay soo maraan, marka wax badan bay ka ciyaari kartaa. midda kale Cabdi saanta ku yeelanaysa laftii wax maalin lagu ogaan kara maaha. waad arki doontaa haddii ay dhamaadaan waa wax 3 sano 5 sano 10 sano kadib aad maalin ka dambeys macnaha dhaqaalihii wadanka sii xoojinaya. marka wax weyn bay ka ciyaaraysaa. markaad leedahay hadday fahmaan reer Puntland hadday fahmaan meesha dawladdu u socoto. Cabdi saad ogtahay meeshan haddaanan wax aan la samrin horumar degdeg laguma gaaro. dadku waxay u baahan yihiin inay fahmaan wax walba hadda socda bilow inay yihiin horena u soo bilowda laakiin la sii wado.
dadku wax wanaagsan bay haystaan qof walbayna dan ugu jirtaa horumarka baan anigu aan isleeyahay inay fahmaan micnaheeda anigu ma lihi dadkooda inay la xisaabtaan dowladdu dadku waa inay la xisaabtaan balse waa inay fahmaan wax walba hadda la bilaabo inaan hore laga helaynin marka anigu waxaan fiirinayaa macnaha maalintii Puntland la asaasay ilaa hadda dad fiirisay wada sax bay hadda ku socota awalna macnaha waxyaabo soo bilowday bay maxaad isleedahay yani dowlad bahsan cabdi anu waxaan isleeyahay Puntland jirta ama cid kasta oo horumar rabta in dowlad bahsanaato ummadda meesha ku nool iska dhex arkirto kana qayb qaadato micnaheedu ma aha qof walba ka mid ah laakiin hadda waxa loo baahan inaadan mararka qaarkood compromise ama aadan ogolaan inaan qof xirfad meelan u lahayn inaad u magacowdi waxyaabaha hadda dowladdan iga muuqdaan haddaan arko marba laga hadlo waxa dadka aan awal dowladda waxba ka haysan ama Soomaaliya si kale u fiirinaysay waa inay aqoontiina leh waa in wax laga siiyaa nidaamkii dowladda waa cadaalad weeyaan waa muhiim weeyaan haddii kale horumar ma gaari karaysa haddaad rabtid meel qurux badan inaad ku noolaatid waa inaad u ogolaataa cid kastoo potential oo talent leh oo xirfadeed u leh meesha kula degan inay meesha wax ku yeelato aad u dhibto adoona fiirinay meesha ay ka yimaadeen waa laga badiyay ama laga yariyay dadka maxay galabsadeen ugu bay galeen maxaa qiila oo u haynaa ficilka fooshakan maxaa qiila u haynaa diin maaha hadday fursato hataa bilaayin laga wanaagsan maaha waqti xanan ku eegiye masalan qiyaas sida aad noqon karto meesha waxay noqonaysaa meel dadku dhan ku quruxsanaato ku noolaada madaxweynaha anu hadda Cabduul waxyaabaha hadda aan marba ku ka helo hadda kor aan laga hadlin waa ishuga arinta cadaaladda war dadkan meeshan degan cid walba way noo sinaadaayo wax laga siyaa shaqooyinkii wasaaradda haddaad maqashaan shaqo dowladeed oo la arkaas garaynayo raadiyaha ka aysan oo aan la oran waxaa mudnaan gaar la siinaya beeraha la haysooco waxba kama jiraan sidaan ugu maqal dad badan waxa jira aqoonti leh laakiin somehow macnaha ma aynan helin si xaqa waxay la ayagu lahaayeen taas waa mid weyn weeyaan xagga nidaamka maaragtay baahinteeda oo ka ciyaaraysa mid kale waxyaabaha aniga aan isleeyahay waa wanaag markaad aragtay issue-yada qaarkood waxyaabaha in loo gudbiyo baarlamaanka waa soo qaaday yani baarlamaanka oo taladii wax ku leh baarlamaanku dowladda meel la xisaabtamaya mise dowladda waxbay ka hagayaan iyagu dowladdu baarlamaanku horta shaqadiisu waxa weeye dowladda inuu la xisaabtamo moogta dowladuna dan wadan kastaba qaab uu leeyahay baarlamaanka dowladdu la xisaabtamo laakiin baarlamaanku ujeeda loo aasaasay waxa weeyaan inay dadkii matalaan somaha way dowladda la xisaabtamaan oo dadkii ay ka dareemayaan macnaha waxa inay ogaadaan iyo issue markaa jira dadku haday wax ka cabanayaan in baarlamaanka dowladda ay kula xisaabtamaan waxaan maleeyahay hadda albaabkaas waa u furan yahay baarlamaanka mid ka badanna waa laga sugaya inay dowladda la xisaan laakiin ma aha inay macnaha inay noqoto mid si u qalloocsan oo macnaha way noqotaa si mid aad dadka macnaha ay ugu jirto waa sidaan anigu aan isleeyahay marka waa waxaad wanaagsan weeyaan taas waa mid weeyaan صح وبرلمانكي لفتيسو هذا اسلاد هي ومن دولتي ilaalinaya oo macnaha la xisaabtamay hadana baarlamaanku uu macnaha arimaha macnaha dadka saameynaya ama muhiimka uu dawladda ku la xisaabtamay hadii kale uu noqonayaa bar iska raba stamp oo soo macnaha lagu shaqeysto waxyaabaha marka qaar aan ku hayo baarlamaanku waxyaabo issue badan ka hadlaya oo wax wanaagsan ayadu dawladda hadalkii wax weeyaan Puntland meel wanaagsan bay u socotaa laakiin way dadku hadii ay dadku fahmaan ay waxooda ilaalsadaan waa wax wanaagsan waxaa tiri maamul wanaag iyo dowlad baxsan oo kulli mas'uuliyadda la wada qaadanay waxaa wada jeedaa Cabdishirinta saddex waxyaabo baa muhiim ah inay wada shaqeeyaan mid waa isha dowladii oo dowladda markaad fiirisataa baarlamaankii ku dar midna waxa waa midii civil society dadkii shacabka dadkii aqoon-yahankii odayaashii dhaqamadii maaragtay midna waxa way dadkii ganacsatada hadana saddexda wada shaqeyn meeshaas meel quruxsan ma noqonayso مثلا هذا واحد إيه مقصد دولة هذا جرته كنتي إن دولة أيضا ولا شقينيسو وبرلمان كلفت أيضا الله حساب تميو سمع أيضا لا تشاني صد وياشي دقمتك هذه يشجع local NGO دي ودتكي مارتي بالشدة كيمي أما قوي هندي أيضا كي قال عساتها أيضا لا شيء زلاس ودتكي ودنكي مال قشطة
intaasba dadkii ku kooban yahay baan u malaynayaa maaragtay shacabka marka haddii ay wada shaqeeyaan ama sida hadda ugu dhaqmaysa waxaan u maleynayaa Puntland meel wanaagsan bay maraysaa dhinaca odayaasha hadii goor waxaa la yiraahdaa oday dhaqameedku mararka qaarkood hawlaysan lahayn bay galaan ma fahmo taas waxay keentaa in ay dhaliso mararka qaarkood isfahmo waa dowladdii iyo dhaqameedii adiguna ammaan baad usoo jeedisay aad leedahay dowladdu waxay ay yani talada wax ka siisay oday dhaqameedyadii iyo dhaqankii ma garanaysaa seebay labadaa isu waafaqayaan haddii dowladdu ay rabto dadkeeda inay u shaqayso sax waxaa muhiima inay dhageysto dadka odayaasha ama dadka aqoon-yahanka ee bulshadeeda ka mid ah si ay uga ogaato waxyaabaha dadka maaragtay ka cabanayaan iyo uu xalku yahay ugu dambeyntii dowladda ay jirtaa markaa meesha ay u dhaqaaqayso laakiin xogo ururintaasi dowladdu wax weyn ba anfacaysaa waxayna ka hortagaysaa waxyaaba khaladaad dhici lahaa in ay dhacaan markaan ku leeyahay marka odayaasha in la jisto waa muhiim weeyaan waayo waxay ka turjumayaan ma garan karayaan dadka waxa saameynaya taas micnaheedu ma aha in dowladdu wax walba ay qaadanayso sidoo kale waxay ku xiran tahay ninka oday dhaqameedka laftiisa inuu fahansan yahay inuu ka shaqeeyo wanaaga dadka uu isticmaalayo isaga laftiisa waxa uu dangooniya marka waa muhiim wada tashi ka dhaxeeya ma aha kaliya oday dhaqameedka bal sidoo kale ganacsatada aqoon-yahanka cid kasta dowladdu waa inay ka raadisaa program kasta ay samaynayso maxay inala tahay mashruucan aan damacsanna inaan samayno maxay inala tahay waxaan xoog raadin maaragtay laakiin wixii inaan lagu samayn waa iska samaynay dowladda ka timi way dadkii waxaan hadda dowladdu ay samaynayso ficil bay qaado waxay aakhirka saameynaysaa waa dadkii weeyaan dadkii aad samaynayso macnaha ay saameynayso stakeholderska waa inaad taladooda aad ka raadsataa input عاد واحد اللي دلقات بدنا أي دولة هذا معمول كهيسا بنتلان أيلان حاول جدا. أبيه وحنا ولا جدا وحمود الدولة وحياة بدن وبدك قاركود اللي منطقنا وإني هو قبتها إني دلقات أموجسي وحمود الدولة إنك دقن كأيس أموجيني دقن شعبي. يعني هاي دولة ماركتي حقوق استعمالس وكتكت دقن كي ماركتي وحقوق الحكومية. مرة ودقن هذا هو نعكسن. بدك قاركود واحد سليم من هو سودين لكن دلقاتكم مركز دم بأسوا بدك أيه كل بانيين وأنا وح ونعكسن أنا سليم دولة داس لو وهم بليه دلقات هو مهم. بدك الشعب كوحوب باهين إن لو دلقات بدك وحوياش إن لقلت تشتو سدينا بدأ ماركت وحلوة قبلها ومهم ويان. وانا دقن ونعكسن ويان واحنا حسيت وايدي هراء أما ودما قاركود واحد كجرا هذا يجسور شدي تيما أنا حب أنكو استعمالية لكن هذا نقطة هذا يجسور شدي ووضع فريسانينا سيانو بدبادين ومد دقن ونعكسن بين قنيسة وهكذا ليس يعني دلقات كأي موجودة يسود دولة دمان تبون لها كجرتا وهكذا كان ليس يعني إلها نقالها هذا الكلام واحد كتير خير الله كسيه إن يعني laanshii iyo saburkii laga helo dadka laftiisa dadka hadii taas la dawladdu maxay qaban karaysaa horta dadku macnaha waa in dawladdu ay ogaato dadkeedu waxa u baahan yahay ummadan ay dhistaa waxaan filaya dawladdu program bay leedahay macnaha waa dadkii fahansiisaa muhiimadda ay leedahay dawladnimada ay dadka la fahansiiyaan dadkuna waa inay dhidhimiyaan lafteedu faa'iidada ay dawladdu u leedahay halkaas waxaa ka imaanaya faham وانا اسكت بني ادم مارتي بانو مانيا dadku waxay jecel yihiin horay wax ka helaan natiijo for example hadda airport dhisay muddo qaadanaysa ama dekad dhaqaalaha waa u baahanta waxa laga yaabaa dadka caadi inay dadku inay hore ka fahmeen laakiin dadku waa in dawladdu waa inay fahansiisaa sababta u dooratay ilaha dhaqaalaha inay dhisto miisaan ay u dhisi weeyday ceeb ama u qodi weeyday ممكن لذلك توس وحوس عملية عيالكي عنقي سن سكول هذه أيضا هو مهم لكن ده عيال كان لفتي زاد ترادي ماشي كإيماني وحلو ودي سلا وحنو كرجينا إنه كصبحه إيربوركاس أما ده كده وكصبح إذا كيسالو فن مدة ده كله وده تشي تشوكتا بدوينها لا تشت ده كأقوياء هنكا ده كجناحسة هذا ده كيشيء أو ده إيش ده كنكا ولا غلط تشت وحيابا أيوة توز صامينية وحيابها النبض waxyaabaha maaragtay wax kasta maaragtay waa muhiim weeyaan dadku waxay dareemayaan marka inay dawladdu wax ku leeyihiin micnaheedu ma inaad tiraahdo moogta anigu waan u dulqaadanaya dawladda dadka laftooda waxa looga baahan yahay xisaabtan dawladda la xisaabtan laakiin waxa kula xisaabtan dabcan dadku dad bay doorteen oo baarlamaanka ugu jira baarlamaanka laftiisu waa inuu leeyahay mas'uuliyadiisa una laftiisa u noqon mid hilmaama dadkii soo doortay haddii la wada shaqeeyo oo ganacsatadii dawladdii
dowladda lafteeda markaan kuleeyahay isku soo duubo waa baarlamaankii waa dowladdii waa wasaaradeed wax kasta iyo dadkii aqoon-yahanka oo civil society-ka ama odayaashii dhaqanka iyagana hal mid ka dhig iyo NGO-dii iyo dadkii ganacsatada saddexda haday wada shaqeeyaan oo ka wada shaqeeyaan inay ka dhigaan meesha meel wanaagsan ay ku noolaadaan cid kastana ku noolaato oo cadaaladna ka jirto waxaan u leeyahay wax noqonaysaa meesha wanaagsan lagu noolaado wadamadan hadda aad joogtaan oo kala fiiri way wada shaqeeyaan inta kii ganacsiga lagama maarmo aqoon-yahankii lagama maarmo talada waa la ballaariyay maxaa haddii dekada tan ay la ballaariyo ay dhisanto horumar intee laga soo geli karaa is leedahay wadanka wallahi dekadu hadda mogtahay waxay ka ciyaaraysaa dhaqaalaha waa meel weyn bay ka ciyaaraysaa waxa weeyaan maraakiib baa imaanaysa ganacsigii midda kale puntland kaliya meel walba ganacsigii waa aadaya dowladda dakhli baa kasoo gelaya shaqana way abuuraysaa waxyaaba badan oo cusubna wadankii waa ay keenaysaa ganacsigaas arkaysa meel walba ka imaanaya wadamadan wadankii xitaa wax cusub buu kusoo kordhinaya waa aragtiya wixii halkaa kasoo baxana dabcan dowladdu waxaan filayaa marka wax loogu talagalay in ummadda wax loogu qabto marka wax weyn bay dekeduhu ka qabanayaan tirarkan ay sheegeen kaabayaasha dhaqaalaha midda kale waxa kaloo muhiim ah maaha kaliya deked kaliya wax wadanka uu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay meelaha aan la gaari karin laftooda wadooyin in loo sameeyo si caafimaadku u gaaro iskuulku u gaaro macnaha xoolihii badankood waxaan filayaa wuxuu u baahan yahay wadooyin in la sameeyo si xoolihii dekeda dareenka wada lahaanshaha baa soo qaad maxaa ula jeedaa dareenka hadday dadku fahmaan dareenka wada lahaanshaha maxaa la wada lahaanaya ma wadanka ama dekeda ama aerobortka maxaa la wada lahaanaya abdi waa su-aal fiican weeyaan wada lahaanshaha waxaan ula jeedaa dadku horta waa inay dareemaan inay wadankan in ayagu wax ku leeyihiin dowladna in waxba ka sugin keliya masalan meel baad degan tahay xaafad baad degan tahay maaha inaad ka sugto ninka booliiska nabadeeda waa in adigu laftaada aad dareentaa inaad meesha degan tahay nabadeedana ay kaa saaran tahay mas-uuliyad waa dowladdii aad ogeysiin kartaa haddaad waxad ka cabsatay ama aad istiraahdo waxyaaba nabadda khalkhal gelin kara laakiin haddaadan dareensanayn inaad meesha wax ku leedahay adigu laftaada khalkhal abuurtay dee hadhow ayay dib kugu soo laabanaysaa waa waxyaabaha wadamo badan dunida saddexaad ka dhacay dadka ayagoon ka fikir dadkii baa dhibtay intay qalalaasa bilaaban ba hadhow wixii kusoo laabtaa ayaga hadhow tan ay noqotaa inay waayaan meel ku noolaadaan caruurtooda ku dhaqdaan reerkooda ku dhaqdaan caafimaad ku helaan marka dadku waa muhiim inay meesha waxa ku leeyihiin micnaheed taan lahaansho waxa weeyaan maaha inaad wax walba iska aqbasho ayagoo soo macnaha dowladda in la xisaabtan waayo canshuur bay bixiyaan waxaas anagu u baahana but at the same time sidoo kalena dadkii ka shaqeynaya nabadii xasiloonadii very mararka qaarkood waxyaaba waxaa jira dadku markay lahaansho dareemayaan ay xitaa dowladdu waxyaaba qaarkood in mar ugu tegin ninkii ganacsadaa oo meel degan meel iswada degan ayagaa xitaa ka shaqeyn kara inay samaystaan meel yaroo caafimaada ama wadada qashinka iska qaadaan nadiifiyaan maaha inaad dowlad ka sugto mogta ama qashinkii dadka dariska ku daadis haddaa isku timaada anigu ana waxaan aan iska qaadnaa iska nadiifin ama waxaan anagu maaragtay nabadeena anagu aan hagaagsan markaad waxaad dareemaysaa inaad meesha wax ku leedahay laakiin inaad tiraahdo maxaa anaga iga galay waxaa weye gurigeygaan waxaan ku xiranayaa derbi wareegsan oo nabada ku daadinaya marka lahaansho dadku waa inay ka timaada dowladduna waa inay dareen dadkuna ay dareemaan waa wada shaqeyn waa muhiim ugu dambeyn dowladdu waxay matalaysaa dadkii waxaa soo qaaday soomaalinimada puntland inay yihiin iyadana marsharaxa marba madaxweynuhu wuxuu ku celceliyaa war annaga soomaalinimada cidna uga tegi mayno waxaad moodaa mabda aad u dheer u qoto dheer inuu yahay marka waa wax aada u wanaagsan weeyaan inaad tira soomaalinimada cidnana marti uga noqon mayno balse diyaar baan u nahay macnaha wixii la sixi kara in macnaha in la wada saxo markaad u fiirisay macnaha wuu dhihi kara inuu yidhaha anagu soomaalinimo waa ka tashanayna laakiin soomaalina cidna uga tegi mayno wax aada u wanaagsan waan astaan aada u wanaagsan weeyaan in puntland ay meel wanaagsan ay u socoto waa muhiim soomaalida wax laisku keeno in laisku keeno lagana tagana dhaqankii hore oo ahaa ninbaa macnaha talada intuu maroqsado dad xukumaya u talinaya waxaan u maleynayaa dhaqankaas hadda adduunyada waa ka suula adduunka hadda waxaan ku noolnahay hal mid buu noqdo sida ogtahay saakito inta halkaa ka dhaqaaqadaad habeenkii ka cashayn kartaa niyo subaxii quraac Tokyo next day Melbourne baad shir ku qaadan kartaa adduunku waa looga waxa ka dhacay ninka maanta waxa garowa ka dhaca waxa laga yaabaa ninka degan inuu ogeyn laakiin kan Melbourne inay joogin hore ka ogyahay telefoon buu kula hadlaya marka waxay u baahan tahay hab cusub oo dadkii macnaha dowladda ay ula dhaqanto dadkuna ay u fahmaan waa dadkii Soomaalinimada macnaha hawlka Soomaalida inay kala maarmin cid maanta khiyaamin karta ma jirto waa runta Soomaali marka
adiga waxaan umaleeyaa soomaalida dana way jirta Soomaaliya inay wada noolaato dhinaca federalismka iyo doorka jirto tirada badan soo aragtaa wallahi niman wada aqoon dheer dhinacaas aniga awmalihi waa waxaan arinta aan ka jawaabi karin laakiin waxaan anigu qabaa mas'uuliyadda Soomaalidu cid kasta ay haato وإني فعل كإقاضيان كترشنتا باهيدا رسمي قاعدتك Soomaalidu waxa ay rabaan haday ay taadicin waxay noqonaysaa waxa ay ku soo laabato oo dhibaato u keento moogtay waagi hore dadka waa la iska jujuubi jiray laakiin waxa su'aasha federal ma aqoon uma lihi laakiin waxaan u rumaysan dadku wax kasto ay baahi ay rabaan waa inay macnaha siyaasadda dawladda weyn ka turshuntaa waadan iska inda tirin dadka waxay iyagu macnaha ay raali ka yihiin haddii dadku yiraahdaan musaasaan rabnaa federal baarlamaanka dadka waa inaad dhageysta maxaa koos gareynay maxaa sabab misaaminaan baa dhacaysa ma aqaan ugu dambeyntii maxaa kula dardaarmi lahayd dadka reer Puntland ama Soomaalida halkan laga yaabo inay la daawanayaan caawa waxaan anigu aan ila tahay aan kula dardaarmay xaqiiqdii Puntland horumar wanaagsan ayay ku socotaa horumarkuna waa meel buu ka bilowda laakiin ma dhamaado waana la isku dhidhiiba dadkaas sii wada dadku waa inay fahmaan aaminaan muhiimadda u leedahay horumarka caruurtooda hadda kuwa mustaqbalka oo ay ilaalsadaan oo wanaag ka shaqeeyaan oo laga tago dhaqanka ah maaragtay hadaan wax waayo waxa jiraan qaribaya oo baabina wax ay galay ma jiro waxaan u maleynayaa waa horumarku wuxuu ku jiraa inaad dulqaad muujisi dulqaadkuna wax ku yimaada waxa hadda jira oo macnaha weena dad taageerta jeceshay hadii kale hadii wanaag kugu muuqato haddaad sixi kartin aad saxdi laakiin mar walba aad ka fogaataa inaad ficil xun aad sameysay aad wixii ku qaribtay wayo waxa aad qaribaysi waa adigu islaada maanteeto ana wax ku helaya laakiin wax ku weyn cunuga adiga dhashay way meeshu degan yahay meeshu ku nool yahay marka waxaan qabaa Puntland ha barato wax badan ka barato wixii Soomaali taariikhdeeda soo maray ka dhacay waa inay muraayad u noqotaa warse wallahi xanaa wadada mugu deegaana soo marnay oo wada cusub oo abuurna dadka qaarkood haba u qaraato wax la yeenay ma naqaan anaga wadada laakiin oo tusatay faa'iido ku leeyahay taasna waa taan ku leeyahay weeyaan daarinka waxa dadku wixii wax diidan anigu saaniga la tahay wayna ogaadaan dib wax ficil xun sameeyaan inay hadhowto caruurtoodii wax dhan dhibaato u keenayso wanaag wuxuu ku jiraa wada hadal waxoodan adkaystaan Soomaalinimadana ay ka tageen oo runtii ay Soomaalinimada ay yiraahdaan maaragtay waa wax muhiim ah sida hadda bay leeyihiin way Soomaali ma kala maaranto waa isku mid barnaamijkeeni martida uu inoogu ahaa aqoon-yahan Cabdirashiid Bashiir Warsame aan halkan caawa studio magaalada Melbourne ee wadanka Australia kula yeelanay inta ayaanu ku soo gabagabeynayna waa Cabdi Cilmiyeedan le sidaa iyo nabadgelyo iyo asbuuca dambe iyo barnaamijka Astaan Horumar ha moogaanin ee kala soco Melbourne studio Australia Cabdirashiid aad iyo aad baan kugu mahadinayaa ogolaanshaha Allah mudan Cabdi Kulan dadku ma santahay